haddaad sharciga dalka diido anna qolaan noqonaya adna qolaad noqonaysa waynu kala dareeray maalin walba Saleebaan iyo Muuse baa celiyay xeerkii baa la diiday waa la celiyay haddana way noqotay waxaa lagu jiri maayo waxa la yiri ragciilkii cadaabka dooray hadday doorashada Saleebaan iyo Muuse miiska dhigi waayaan meel alla meeshii dhaanta halka konton nin oo isku xiran baana ayaanu ka degaynaa dhaqaalihii Soomaaliya wax baabiyay waa doorashadii waqtigaa oo xalaal danyartii maanta waxaan doonayaa maanta waxaan ka hadlayaa maanta Soomaaliland waxa ragaadiyay doorasho ragaadisay dhaqaalaha waxa dhulka dhigay waa doorashada ciidankii Soomaaliland waxa la socod ku jabiyay waa doorashadii dhaqaalihii Soomaaliland waxa baabiyay waa doorashadii waqtigaa oo xalaal danyartii maanta Hargeysa dhulka IDPS-yada dad baa macaluul ugu dhimanaya waliba waxay isu taageen doorashadii waa doorashadii Saleebaan iyo Muuse labadaa nin baa doorashadiida Soomaaliland labadaas aanay ka jirin in badan ayaanu sugaynaa haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ee wadani in doorashada la qabto saaka waxaan idiin sheegayaa nin aan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirre ahayn hadduu maanta ka sugayo doorasho uu ka sugi lahaa Muuse iyo Saleebaan Soomaaliland maanta may soo gaadheen laba diblaan waliba u haynaa waxaan leeyahay haddii doorashadii aad la meeraysanaysaan xeerkii konton siyaasi maalintii horena waan sheegay war idinka ilaahay idinma qorin inaad kuraasta fadhidaan siyaasiyiinta kale haddaad jaaniska u diidaan inay jaaniskooda ciyaaraan waxaanu qaban doonaa meel jaaniska iyaga laga ogol yahay waxaanu ku soo dayn doonaa lacag Soomaaliland wallaahi baydan kaligiin haysanayn wallaahi Soomaan dhaaran kaligiin haysan maysan Soomaaliland Muuse Biixi iyo oo doorashadiida iyo odayga la yiraahdo Saleebaan wallaahi baanay Soomaaliland haysanayn kaligood bahashani waxa ku soo gaadhay halka qorisudii bay hayd maalin walba Saleebaan iyo Muuse baa celiyay xeerkii baa la diiday waa la celiyay haddana way noqotay waxaa lagu jiri maayo waxaa la doonaysan Soomaaliland Muuse Biixi waxaad la doonaysaa inay Hargeysa isbaarooyin yeelato oo ay 94 ku noqoto ayaad la doonaysaa isbaarooyin baad la rabtaa oo ku fahmay anigu inay isbaarooyin yeelato Soomaaliland ayaad doonaysaa waxa jira 30 sanadood koob iyo 30 sanadood oo Soomaaliland dhisnayd UN toodhan baa ka soo shaqeeyay dabal masar aqoon baan leeyahay waxa aan intaa xeerinayay jacaylka Soomaaliland waligeed baad ku dhex gaajo ciidaad cuntid laakiin adiga Saleebaan ayaa diiday inaad doorasho qabataan oo Soomaaliland jirto xeerka inaad la meeraysataan ma aha inaad la meeraysataan waxaan iminka maanta idiin sheegaya haddii xeerkii soo dhigi weydaan miiska xeerkii doorashada isasaarka ahaa ee guddidii habar jeclo ay Soomaaliland ku badbaadisay ee buurta lagaga soo baxay ee khilaafka lagu saaray haddaa miiska soo dhigi weydaan waxaan idiin sheegayaa meel fog baa ka dooni doontaan meel fog ayaa ka dooni doontaan waxa weeyaan kaligiin ma lihidin dalka kaligiin caqli ma lihidin dalku sharci buu leeyahay sharciga dalka ayaa aadna madaxweyne ku tahay sharciga dalka haddaad sharciga dalka diido anna qolaan noqonaya adna qolaad noqonaysa waynu kala dareerayna sharciga dalka lagu soo laabto doorashada hal qabto Soomaaliland 6 bilood gudahood waa inay doorasho ku gashaa haddii kale waxay noqon doontaa meel aan la gaarin baa laga dooni doonaa Soomaaliland konton siyaasi baanu nahay markaanu aragnay inaan labadan nin cid qabataa jirin inaan sharci ka jirin Soomaaliland inaan doorashada loo ogolayn in la qabto waxa la yiri ragciilkii cadaabka dooray bay Soomaalidu ku mahmaa ragciilkii cadaabka dooray hadday doorashada Saleebaan iyo Muuse miiska dhigi waayaan meel alla meeshii dhaanta halka konton nin oo isku xiran baana ayaanu ka degaynaa maya deegaamada Soomaaliland oo dhan baan ka soo jeednaa waxaanuna samayn doonaa nimanka awoodoodan tusi doonaa